qorshayaasha ugu muhiimsan ee u dejisan xukuumadda dawladda Soomaaliya Itoobiya ayaa waxay yihiin sidii deegaanka looga hirgelin lahaa biyo ku filan iyadoo sanadadii ugu dambeeyay laga hirgeliyay ceelal dhaadheer riiga goob badan oo kamid ah deegaanka bulshada u qabtay baahi badan waxaana kamid ah goobaha laga hirgeliyay ceelashan riiga qabalaha labi hawle degmada Marsin ee gobolka Qorraxay ceelka laga hirgeliyay qabalahani ayaa ceel riiga biyihiisuna noqdeen biyo dhan ah haddaba si ay si habsami uga faa'iideystaan dad iyo dunyaba biyaha ceelkani ayaa waxay xukuumaddu keentay mashiinka biyaha macaaneeya mashiinkan oo mid casri ah kana sifeeya biyaha una kala saara macaaniyo dhanan waxaana soo dhaweeyay mashiinkan biyaha macaaneeya bulshada ku dhaqan nawaaxiga qabalaha labi hawle ee ka caba ceelkani waxyaabay soo jiray ee magaranayay jilaash iyo abaarta iyo olaanta aad iyo aad baan macnaha odayaasha ama dadka jira u garanaya hadda waxaan aad u faraxsanahay macnaha sida fiican ee nolol soo dhaweeyay ama garanayay baabcala iyo riiga iyo maxaan ku dhahay biyo macaana iyo geel ka cabayaan intuba macnaan haysan aniga geel meesha ka cabaa meeshan alxaari karood ka cabjaa hore haddana macnaha ka tagu tacab aad iyo aad xaslee biyahana ka tayroon kana fiican mishik macaanaha biyaha noo macaanahay ayaa maxaan ku ka cabnaa asagoo biyo haylaanido kala ah biyaha waa ku mahadnaqayna si fiicanna way cabnaado waa ka dhargnaa waa noolaana dhulkan oo maan ugu baqtayna marka hore oo aan joognado oo maan marka hore ugu haystay yarfaad marka intii ka bacdi ka dambeysay inna macaan helay heerkii maalin ma qaday marka hal maalin ma qado waa ku dhaqdaa waa dhulka raaciya waa ku rushaystaa waa ka dhargi alxamdulillah marka dawladda iyo dalka baan mahadnaqay waxaana laga warbixiyay hanaanka casriga ah ee uu shaqeeyo mashiinka biyaha macaaneeya iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada ka cabta ceelkan gudoomiyaha degmada Marsin iyo farsamayaqaanka gacanta ku haya ceelkani kolkoor biyo khayr baan marka warshadan markii la keeno casri dibadda laga keenay biyo waxayna wadaan sida Highland oo kale way waa biyo aad u macaan weeyaan wadana nadiif ah way marka dhinacna kuwii khayr ka shaqeeyo dhinacna kuwii macaan way ka shaqeeysaa marka waa maxaa weey waa horumar aad iyo aad matqaana waa qalab qaali ah miisaan farman ku baxday way marka bulshadu waxa weey had koor biyo khayr ab jirtay markii warshada loo sameeyay mar labaad bay faa'iideen way iyo mar saddexaadba kow biyo laan baa jirtay biyo waa loo sameeyay laba haddana biyo markii khayreen biyo macaan baa loo sameeyay matqaana diyaartaan mashin qaali loo siibay marka biyo macaan oo xareed oo Highland oo kale inay isticmaalaan matqaana faa'iido saddexaad iyo to afraad bulshada matqaana weyn soo dhaweysay wayna u tahay sida jeedan waxay heeday hadda warshada qaabka u shaqeynayso waxa waaye hadda jeedan biyahan waa kharaarkii maxay heeday way sifeeni waa jeedan xaqna waa macaankii warshadana aad jeedan gabigeedba waa qalab kombiyuutar ah matqaana kombiyuutar aan u shaqeynay ilad walba ku timaado hay'adaha ku sheegayso biyana saad jeedaan degmada ayaan diraa qayb markaan macaaneeyo qaabna maxay heeday bulshada uga faa'iideysato halkan qabalaha ayaa laga cabaa xoolaha kale maxay heeday ceelka biyihiisu waa dhano oo mataqaanaa dhanaanka looga faa'iideystaa biyahan dhanaha cabaan marka mataqaanaa warshada markaan dib ugu laabto 60% maxay heeday waxay ku dhacaan haanta 40% banaanka ay u baxaan biyaha kharaarka warshada qaabka u shaqeyso qaabka ceelkan la macaaneeyay biyihiisa ayaa waxaa la filayaa inuu baahi badan oo dhanka biyaha ka qabtiri doono bulshada ku dhaqan qabalaha labi hawle iyo nawaaxigiisa Bashir Maxamuud ESTV qabalaha labi hawle ee degmada Marsin ee gobolka Qorraxay